sanadahan dambe ayaa Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden waxa si weyn ay uga dhex muuqdeen goobaha ganacsiga ee dalkaasi. dhawaan ayaa waxa xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Stockholm waxa laga hirgeliyay dukaan lagu iibiyo kareemada iyo qalabka kale iyo amaba waxyaabaha kale ee haweenku ay isku qurxiyaan bilicdoodana soo saara. dukaankan oo ay hirgelisay shirkadda Asli Pure Care ayaa waxa wakiil uga ah guud ahaan dalalka Scandinavian-ka Marwo Qaali Aadan oo xafladii furitaanka xadhiga kaga jartay dukaankaasi ka sheegtay sababta dukaankaasi loo furay. Asli Pure Care aad baa loo weydiiyaa maxay sheeg xaafadan Rinkeby Stockholm oo dhan dad fara badan oo weydiinta markay ugu badiyeen waxaan go'aansaday inaan deeqaluul ku casuumo Stockholm ee branchigan ay nala furto. waan ku maasantaa deeqaluul anigu Qaali Aadan oo branchigan madaxda ka ah waa soo dhaweynaya gabdhaha Stockholm oo nagala soo qayb galay iyagaan igu dhiirigeliyay inaan creamkan inaan u keeno halkan oo deeqaluulna aan ku casuumo. aad baan u mahadsantahay. waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso aan u mahad celiyo walaashay Qaali Aadan oo xafladan iyo waxaan quruxda badan soo bandhigtay maanta barnaamijkana qayb muhiim ah ka ahayd. waa uga mahad celinayaa walaashay Qaali marka ugu horeyso iyo gabdhihii dabcan la soo qaban qaabiyay la shaqeynayay Soomaaliyeed. mar kale waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran sida quruxda badan ee ay igu casunteen furitaanka kambaniga Asli Pure Skincare xaruntiisa Sweden Stockholm. dhawaan waxaan ka imid wadanka Imaaraadka Carabta waxaan ka soo furay branch weyn oo loogu talagalay in jumlada ama wholesale-ka lagu bixiyo. alxamdulillah si fiican ay noogu soo dhamaatay. hadda waxaan joognaa Sweden. xarunta weyn ee kambaniga markiisa hore waxay ku taalay Ingiriiska caasimadeeda London. hadda waxaan is dhihi karaa branchiga ama qaybta ku xigto waxay noqonaysaa Sweden oo calafka u yeelatay. alxamdulillah wuu socon doonaa. waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinayaa saa nagala soo qayb gasheen. waxaan filayaa inaad walaashay Qaali la soo xiriiri doontaan reer Sweden iyo reer Scandinavian. hadda waxa idinkugu dhow branchigan weyn Stockholm laga furay la xiriiri doontaan. si fiican ah is leeyahay khibrad buuxday u leedahay inay idin sharaxdo baahidiina idin haqabtirto si fiican ay advice ama talooyin idinku haboon wixii idinka markaas idin naasibayo inay idin siin karto. xaafadan Rinkeby especially Stockholm aad iyo aad baa gabdhaha ku nool waxa ugu faraxsanahay in loo furo branchigan oo kale Asli Pure Care oo muddo badan aan sugaynay. runtii aad baa ugu faraxsanahay Sweden hadii laga furay especially Stockholm. aad iyo aad baan ugu baahanaa kareemyada naturka oo maaragtay gabdhuhu maaragtay u baahan yihiin kimikaalka iyo waxyaabahaas looma baahna. marka waxaan ku soo dhaweynaynaa make upkii oo idil iyo kareemyadii iyo alaabtii oo dhan baan noo timi. aad baan ugu faraxsanahay inay maanta Asli Pure Care nagala qayb gasho maanta xafladan quruxda badan. gabdhaha Stockholm oo dhan waa ku soo dhaweynayaa especially gabadhan kaleeto Qaali oo branchiga iyadana maaragtay mas'uulka ka ah. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wax badan bay Stockholm ka bedeshay gabdhahooda xagga qurxinta.